kulanti wacan daawadayaal kusoo dhawaada channelkeena Horror Official hadaa ku cusub tahay ku cimaamad subscribe share comment like furo gambaleelka soo heshid muuqaalada ugu badambeeyay hadaan la joogtayna waa ku maasan daawashadaada kusoo dhawaada barnaamijka la kulanka laacibka waa barnaamij isbuuclaha maalin walba oo khamiis wuxuu ka baxaa channelkeena ala waxaan idin soo tabiyo anigoo ah Xanad Horri waxaan ku martigelinaa xirfadlayaasha kubadda cagta kuwada ugu tanka weyn gaar ahaan Puntland khaasatan wax nooga sheeg taariikh nololeedkaaga oo kooban بسم الله الرحمن الرحيم طبعا سيدتكو يودا يقانين مغاعيغو أنا سيد عبد السلام أنا جافيس كنا دشي magaalada Boosaaso ku barbaaray Boosaaso waxna ku bartay Boosaaso heerkiisii hoose dhexe sare iskuulka jaamacadana ku dhigtay magacayguna sidadku yaqaaniin oo Anas Jafes kana tirsan naadiga Facaweyn ee Bari FC xilima ayaad bilowday ciyaarista kubadda cagta kubadda cagtu waa balwad qof walbana wuxuu leeyahay wax balwad ama uu jecel yahay waana wax ilaa yaraanteedii aan soo waday ilaa maanta oo aan ahay ninka laga yaqaan gobolka Bari oo dhan booskaaga joogtada ee kubadda cagta ka dheeshid una sheeg kartaa booskiga aan kubadda cagta ka dheelo sida dadku Soomaalidu u yaqaaniin daafaca dambe ee bidix ama daafaca bidix ama lambar 3 waa kuma saaxiibka kugu dhow ee kubadda cagta طبعا waxaan ku leeyahay saaxiibo fara badan kubadda cagta sababtoo kubadda cagtu maaha wax kooban ee wax weyn saaxiibkayga iigu dhow marka aan dhahona waa Maxamed Aadan Xasan Ilig waa ninka ugu badan oo waqtigayga ama hadday noqoto kubadka sheekaysi ama hadday noqoto waqti wada qaadashada uu yahay saaxiibkayga iigu dhow waxaan nooga sheegi kartaa kooxihii aad u soo ciyaartay inta ku jirtay xirfadda kubadda cagta طبعا kubadda waxaan u soo dheeray tiimam fara badan hadday noqoto tiimamkii xaafadayda sida Salaama Muriikh Brazil haddana waxaan u dheeraa kooxda Facaweyn ee Bari FC inta kubadda cagta ciyaartay kuma aha weeraryahankii kugu adkaa oo ka hor yimaada intaan kubadda cagta ciyaaray weeraryahankii ugu halista badnaa oo aan wajaho wuxuu ahaa Maxamed Aadan Xasan Iligaas ma noo sheegi kartaa goolhayii kugu adkaa ka hortagtay inta ciyaaraysa xirfadda kubadda cagta goolhayii igu adkaa ama goolhayii ugu adkaa oo aan ka hortago wuxuu ahaa Ayaan Saciid Maxamed Ayaan Seef haddana u dheeraa koox ka dheela Premier League Soomaaliya kooxdii kugu adkayd ka hortagtid inta ayana ku jirtay xirfadda kubadda cagta ma xasuustaa طبعا kooxdii ugu adkeed aan ka hortago intaan xirfadda kubadda cagta ku jiray waa Boosaaso FC waa kooxda labaad oo ka dhisan magaalada Boosaaso FC intii aad ciyaaraysay xirfadda kubadda cagta ma xasuustaa waqtigii kugu wanaagsanaa aad soo qaadatay waqtigii iigu wanaagsanaa aan soo qaatay wuxuu ahaa 2019kii markii aan ku guuleysanay koobkii aan ambitiga ku qaadnay kula qaaday MBT ku qaadnay aan kula qaaday naadiga Bari FC ma xasuustaa goolkii kugu quruxda badnaa aad dhalisay inta ku jirtay heerkan kubadda waa goolkii aan ka dhaliyay Boosaaso FC oo aan u dhaliyay tiimkayga Bari FC guushii kugu weyneed aad gaartay inta ku jirtay xirfadda kubadda cagta kushii ugu weyneed aan gaaro oo intaan ku jiray kubadda cagta waa koobkii aan kula guuleystay Bari FC khaasatan koobkii aan ku qaadnay MBT-ga waqti xaadirkan xidigee u aragtaa inuu ugu wanaagsan yahay kubadda cagta gaar ahaan gobolka Bari waqti xaadirkan gobolka Bari ciyaaryahanka ugu wanaagsan oo isleeyahay waa ciyaaryahanka ugu wanaagsan mustaqbalkana leh waa Sakhraawi waxaad nala wadaagtaa dhiirigeliyaha kubadda cagta dhiirigeliyaha kubadda cagta waxa weeye nin la dhaho Cabdilaahi Shir Xasan Tirike oo mar walba igu dhiirigeliya inaan kubaddan horumar ka sii sameeyo magac ka sii sameeyo dhiirigeliya mar walba ilaa yaraanteedina ay ahaa dhiirigeliya nala wadaag shaxdaada riyada ama kooxda aad xulan lahayd dabcan dad badatay baan kubadda la soo dheelay qaar hadda kubadda iska daayay qaar kubadda dheela laakiin haddii aan soo koobo waxaan gooliye ka dhigan lahaa Ayaan Saciid Maxamed Ayaan Seef booska lambar 2 waxaan ka dhelsiin lahaa
cabdi faarax dalmar commandos gudahana waxaan gelin lahaa maxamed cabdi maxamed rookho iyo tiyaaga shire tarayna waxaa iga dheeli lahaa ilaahu aadan beerka beeline yacmalle dhexdu waxay ahaan lahayd lambar 6 muuse cabdi ibraahim muuse bundada iyo maxamed ibraahim maxamed wardi iyo cabdiraxmaan laba baale labada baale oo weerarka ah maxamed aadan xasan iligaasis iyo sakhraawi noomana waxay ahaan lahaa doon barkhad. macallinkii kugu wanaagsanaa aad ka hoos ciyaartay kuma aha طبعا macallimiin aad u badan kama hoos ciyaarin 3 ilaa 4 macallin baan ka hoos ciyaaray laakiin macallinkii ugu fiicnaa wuxuu ahaa waan soron karo ilaa kubadaada iyo waqtigaaga waxbuu ka bedelay maxamed ismaaciil cunaaye waana macallinka hadeer kooxda bari FC muddo 3 sano hadeer aan la joogayna aan isleeyahay kubad wax badan baa ka fahantay aad. sidee isku tihiin fanka haddaad isku fiican tihiin fanaankee dhegaysataa inta badan طبعا فنك aad baan isugu fiicannahay fanaankan dhageystana طبعا waxa weeye xasan aadan samatar baan aad u dhageystaa. cuntada noocee jecesha طبعا cunada waxaan jeclahay cunada Soomaalida cunadaas maadaama aan reer bari ahay waxaan jeclahay kalluunka iyo baastada. halkan yaad ka salaamaysaa waxaan salaamayaa dhammaan wixii sportsa khaasatan sportska Soomaalida meel walba ay ku sugan yihiin khaasatan sportska Puntland khaasatan sportska gobolka bari khaasatan teamkayga iyo macallinkayga iyo dhammaan wax taageerayaasha bari FC aad baan idin salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaad.